السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لنا وإنا إليه راجعون. goor weyd waxaa la sheegay geeridii mulaxankii weynaa Cabdikariin Faarax Qaari Jiir oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Cabdikariin Allah u naxariisto wuxuu ahaa hal door ama haliyey ama mucjisooyinka fanka ku soo biiray oo taariikhda caanka ku dhexlay buu ahaa. Cabdikariin sida aan taariikhda ku hayo dhalashadiisii waxaan ku qiyaasi karaa inkastoo aan xog badan ka hayn 43 ilaa 42 meelaha. wuxuu ku dhashay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Hubiyo magaalo xeebeedda. halkaas ayuu ku soo barbaaray. isla barbaarintiisii kadib dhalinyaranimadiisii wuxuu yimid magaalada Muqdisho wuxuuna ka qayb galay tartano faneed oo ka socday halkaa. wuxuuna markaa ka qaaday heelooyinkii qaraamka ahaa oo aad ku dhaadheeraa mid ka mid ah in beer dilaash ahayna waa rajaynayaa. halkaas ayuu ku soo baxay heeladaas ayuu ku soo baxay. kadib Cabdikariin kuma socon xaggii dhinaca fanaanimada iyo codkiisii wuxuu arrinka uu ka yargaabiyay oo muddo 6 bilood sidaan taariikhda ku hayo ayuu Muqdisho bilaa camal ku joogay cad wax shaqo aan laga siin. isla intaa ka bacdi Cabdikariin waxaa ku dhacday qiso jacayl oo isaga gaar u ahayd. markaa qisada jacayl buu la yimi abwaankii Maxamed Cali Kaariye. maxamed biyo suugaan u bedel maxamedna heestii u horeysay uu ka sameeyay heesta la sabab kale. Cabdikariin heestaas uu laxankii u horeeyay uu saaro uu sameeyo heestii u horeysay. Cabdikariin wuxuu u dhibay Maxamed Mooge sida taariikhda ku taala ama dadku u yaqaanaan inta badan dadku heestan Hibe Maxamed u yaqaanaan oo hibe lacag ka qaaday laakiin Maxamed baa heesta markii hore iska leh. intaa ka bacdi Cabdikariin heesta ka bacdi maxamed Cali Kaariye soo noqday oo Maxamed wuxuu sameeyay heestii Rako ama rafaad noqotay buurta tarakadeeda fuushay oo iyana Cabdikariin codka u sameeyay oo cod halaasi u sameeyay. Maxamed baa ku qaaday kaman haddana hadhowto Maxamed Mooge ayaa kaman ku qaaday haddana hadhowto waxaa ku caan baxday Hibe Maxamed oo lacag ka qaaday. labada heesood saas ugu socdaan oo labada Cabdikariin uu fanka ku soo galay ama u horeysay qaybtan laxanka uu ka bilaabay. hagaag Cabdikariin wuxuu u kala laxameeyay abwaaninta kala ah Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Maxamed Cali Kaariye, Xasan Sheekh Muumin, Abwaan Tukaale, Maxamuud Cismaan Tukaale, ninka la yiraahdo Cabduqaadir Xisi Yamyam iyo kuwa kale aad u badan. waa abwaaninta u badan kuwaasi oo heesaa u laxameeyay. fanaaniinta qaada heesaa u laxameeyay waxaa u badan Hibe Maxamed, Xasan Aadan Samatar, Maxamed Mooge, Liibaan Shankaroon, Qalinle iyo Mogool. Allah u naxariisto Cabdikariin Faarax Qaari. labada heesood xaggaasaan ku soo daray wixii kale insha Allah waa isku dayayaa oo intaan ka aqaano heesaa u laxameeyay caanka. wuxuu Cabdikariin laxameeyay heesta la yiraahdo Beledweyn waa ereyada Hadraawi codkan Xasan Aadan baa ku caan baxay. wuxuu laxameeyay heesta la yiraahdo Axada ereyada Hadraawi iyana codka Xasan Aadan baa ku caan baxay. waa heesta la yiraahdo Waxda Caal Walwaalid ku go'aan wadaamuhu Hadraawi waale iyana Qalinle baa ku qaada. hal qali raqdeeda lagu soo qabaamay Hadraawi baale iyana Qalinle qaada. saxarlay fududaan Hadraawi baale iyadana Maxamed Mooge qaada. diga rogasho Hadraawi baale iyadana Maxamed Mooge qaada. heesta la fikri naftayda iyana Hibe Maxamed baa qaada. naftu doqonsana Tukaale iska leh Cabdinaasir Macalin uu qaada. dhoof caashaq ama jacayl dhammaan baa dhexda ugu maran oo iyana Maxamed Cali Kaariye Xasan Aadan uu qaada. heesta la yiraahdo iyana Haatuf Hadraawi baale waxa qaada Maxamed Saleemaan Hudhud iyana waxa qaada Maxamed Mooge Hadraawi baale. guuleed ma jooga Yamyam baale waxa qaada Xasan Aadan Samatar. daalo ama durdur iyo xareeday waxa qaada ninka la yiraahdo Hanuuniye Yamyam baale. dusha timaha guudka Yamyam baale waxa qaada Cumar bin Cabdulle. kaftan baa jacayl dhala kulanka wixii daa murtiba sakiisay waa heesta caanka ahayd. abwaanin badan baa sameeyay Xasan Gani iyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo iyadana waxa qaada Hibe Maxamed. sheekadu makow iyo kuna hayeen ha socota iyadana Maxamed Cali Kaariye sameeyay waxaana qaada Hibe Maxamed. baxsano daraada waxa qaada Saada Cali iyo beer dilaashe waxaana sameeyay Tukaale. weyno hayna kala wadin waxa qaada Hibe Nuure iyo Bacalwaan. heesta iyana la yiraahdo wada jireen nabad gala iyana waxa qaada Hibe Nuure iyo Cabdinaasir Macalin waxaana la Tukaale. ruunay walaalay waxa qaada Hibe Maxamed. Tukaalaana leh saddexaad ayaa jira Saada Cali baa ku caanayna Tukaalaale. mudantii haweenka Hadraawi baale Maxamed Mooge ku caan baxay. Axmed Gureemo uu dhiman iyana Hadraawi baale Shankaroon baa qaada. gud uraan cadaba jirin iyadana waxa la Hadraawi waxaana qaada Shankaroon. Rabdhoon sidaan ahay dhaqaaq joogsi iyo taar dhulka cagama saaray iyadana waxa qaada Saada Cali iyo Qalinle. laalays dusheeda iyo laag iyo xaraar dheer Xasan Sheekh Muumin baale iyadana waxa qaada Hibe Maxamed. waa macalinku waa maskaxdii dunida oo malaasan iyadana waxa qaada Xasan Aadan Samatar waxaana Xasan Sheekh Muumin. haygu dhaafin aramida iyana waa Qalinle iyo Mogool waxaana sameeyay Hadraawi. inan yahay dharaarahan dhuuniga ma quuto iyadana waxa sameeyay Hadraawi waa Qalinle iyo Mogool. shimbir iyo humadu Hadraawi baa sameeyay iyadana waa Mogool. jacayl dhigma loo shubay waa Mogool iyadana Hadraawi baa sameeyay. allo ubadka noo kari iyadana Yamyam baa sameeyay waxaana qaada Saada Cali. labiyo Mogoolay iyadana waxa qaada Axmed Rabsho waxaana sameeyay Hadraawi. wardheer heesaha wardheer heesta la yiraahdo iyadana waxa sameeyay Hadraawi waxaana qaada Xasan Aadan. ergadii furqaan waa qasaa'idka Hadraawi iyadana waxa qaada Axmed Rabsho. heesta la yiraahdo iyana
daafa qurinley heesta la yiraahdo oo iyaduna ka hadlaysay gobaabadii oo in daafa qurinley dubaha kama dhigo iyadana maxamed Salmaan iyo baaqada Khadra Daahir waxaana sameeyay yamyam mahigaan heesta la yiraahdo iyada Khadra Daahir baaqada kuwaas iyo kuwa kale aad u badan waxa kamid ah heesta Yaasiraad ma ogtahay Siraaday oo iyadana sameeyay ninka la yiraahdo Ciise Ganay waxa kamid ah heesta la yiraahdo iyana ayaamaha oo iyadana sameeyay Ciise Ganay Xasan Aadan bayana qaada waxa kamid ah heesta la yiraahdo walaa aniga ku sixin maxaan walba har la toosayda maxamed Muga qaada Taraawi baa sameeyay kuwa iyo kuwa kale aad u badan waxay kamid yihiin heesta caanka ah Cabdikariim Faarax Qaari Jiir sameeyay Allah u naxariisto waxaana u dhameysay Sumalow Darbane oo iyadana ay qaadaan Fahmo iyo gabadha la yiraahdo Sahra Ilays inta soo sheegay iyo kuwa kale oo aad idinku garanaysaan oo aan anigu imka dhaafay oo caana oo suugaanta ugu caansan ah waa heesaha uu u sameeyay laxanka macaan oo dadku ku jeclaadeen oo dadka gaarsiiyay waxa weeye ninka sidaa uu hagaajiyay wuxuu ahaa Allah u naxariistay Cabdikariim Faarax Qaari oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho Cabdikariim dabeecadihiisa markaad eegto wuxuu ahaa nin degan oo aad u degan oo dabeecad wanaagsan inkastoo anigu aan wax fiican ka aqoon laakiin sida aan ula socdo wuxuu ahaa nin dhaqanka ku adag wuxuu ahaa nin sidaa u degan yahay laxankiisuna u degan yahay wuxuu ahaa nin in badan ka duwan dadka laxameystayaasha Soomaalida ah oo inta badan eriga dhawaaqiisa laxameystayaasha uma sameeyaan hadba hawada iyo jawiga ay ku jiraan bay u sameeyaan oo sida meel roob helay meel waxaas oo kale ay laxamada macaan ka soo qabtaan isagu ka duwanaa oo dhawaaqa eriga ayuu ku sameeyay hadba eriga uu sameeyo macnaha ka turjumayo ayuu Cabdikariim codka u saarayay Allah u naxariistaan leeyahay dhamaantii wanaag geeriyooday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الله سعيد جامعة دمانتي ما يسلامي